رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد أياب موادنين تدلك ugu baaqay inay baraha bulshada u isticmaalaan sida ugu haboon wuxuuna yiri irbadu waa bir indha dheer dhibaatadeeduna horteeda mooyee waxa ka dambeeya ma aragto iyadoo isle aad marada dhaafti ayayna dun iyo xarga badan isku dabarartaa qaar ka mid ah dadka baraha bulshada ku xidhan ee dalkeenuna waa sida irbadii oo kale iyagoo irbadoodu halka ay gaarayso aan cidna weydiin ayay qaab socodkeeda inaga iyo wadankeenaba mudaya duntii tirada badnayd ee irbada oo kale isdaba wadaan taageerayaal iyo dad badan ee xogta shabakadooda akhrinaya isla markaana ciwaanadooda ku xidhan mooyee khatarta ay dalka iyo shacabka ku hayaan iyo sunta ay sii deynayaan indha uma laha haddaba iyagoo guulaha waddankeenu bilihii la soo dhaafay soo hoyiyay kala sarrifaya isla markaana jahawareerka siyaasadeed ee iyagu xitaa ayna aqoon u lahayn idin xayeysiinaya in ay waqtigiina qaaliga idinka khasaariyaan munaasib ma aha arrinta xaqiiqda dhabta ah ku salaysan ee hadda waddankeena ka taagan waa sideen xaaladan guracan ee aan ku jirno nafteenna iyo dalkeennaba uga saarnaa waxaan ku sugannahay waqti habsan ah oo masiibo ay xoogaga horumaray ee xariga labadiisa dhinac kala haysta ku rideen Itoobiya iyo Itoobiyankaba xoogaga xaq jirka ee dhinac walba midig iyo bidixba har iyo habeenba u ooman sidii ay rajada nabadgelyo ee waddankeena meesha uga saari lahaayeen isla mar ahaantaana oo dhulkeena u noqon lahaa xarun cabsi oo burbur dulli iyo daal daashaday in ay ina dul taagan yihiin ayaan idin cadaynayaa ninkii gurigiisa dayacan ninka dugsanaya ka sii daran mahmaahda oranaysa waa sarbaab shifto ee ma aha hadafka ay muwaadiniinta nabadda jecel ku dhaqmaan xaqiiqdii Itoobiya xilli ay imtixaan galayso oo uu shakhsi walba qoomiyadiisa iyo qabiilkiisa hoose ku faanayo ayaa la gaari laakiin marka xididada loo siibo faanka beenta ah ayay xaaladdu noqon sheeko doqonnimo haddii ay jirto xirfad iyo xeelad aanan ka faa'iidaysan oo aan leenahay aan iyada waddankeena ku badbaadino oo ku dhisno waxyaabaha dalka burburinaya ee aan baraha bulshada ku shaacinayno inooma habboona ilbaxnimadu waa in aan shacabka aqoon ku dhaqno ee ma aha in aan xog been ah ku jahawareerino mana noqon karto Itoobiya oo dhan waxay mas'uuliyad ka saaran tahay in ay Itoobiya badbaadiyaan inaan kooxo dana gaar ah wato oo siyaasadda ku mashquulsan aan baraha bulshada ku farxino ama ku raali gelino ma aha Itoobiyaanku waa in ay Itoobiya dhisaan Itoobiyana ka farxiyaan ee in ay Itoobiya xoga been ah ku argagixiyaan ma aha in badan ayaan imtixaan ku soo jirnay xilli aan dhibaatadii aan soo dhaafnay ama ka soo gudubnay gadaal ugu noqonnana ma joogno baraha bulshadu waxa ku batay xogaha beenta ah qaylada beenta ah iyo waxyaabaha kale ee xaqiiqda ka fog maadaama ay taageerayaal badan ku xidhan yihiin iyo maadaama ay dad caan ahi iska hadleen run ma noqonayso Itoobiya laakiin waa xaqiiq mar walba jiraysa Itoobiya waa guriga dhammaanteen ee midna xabsi midna guri uma ahan haddii ay jirto cid leh hebel waa bulshadan ama waa kuwii ee faa'iido ama waxyeello gaar ah ha loo sameeyo inaan daaweyno mooyee in aan raacno inaguma habboona meel kasta oo aan ku dhalannay qoomiyad kasta oo aan ka dhalannay ama aan ka midnahay dhammaanteen aan si siman waddankeena ugu adeegno tanina hadafkeena ayuu ahaa haddana aad baan u aaminsannahay Itoobiya dadaalka ubadkeeda kor allaha uga yeelo weligeedna ha noolaato